qisada filimku waxay ku bilaabanaysaa Shiinaha qadiimiga ah halkaasoo aan ku aragno jilaageena Cheng. inkastoo uu indhoole yahay haddana wuxuu caan ku yahay dabagalka dambiilayaasha iyo xirfadiisa dhanka seefaha. wuxuu yimid goob lagu qamaaro wuxuuna milkiilaha tusayaa sawirka qof baxsad ah oo la raadinayo. ninka ayaa diiday inuu bixiyo wax war ah wuxuuna ka codsaday inuu baxo. si kastaba ha ahaatee Cheng wuxuu ku tiirsan yahay dareenkiisa oo si lama filaan ah ayuu u tooriyeeyay milkiilaha. markuu dareemay nabar gacantiisa ku yaala ayuu markaas gartay inuu kan yahay baxsadkii uu raadinayay. Cheng si degdeg ah ayuu ugu dhameeyay ninka taasoo keentay in ilaalada ay weerar ku soo qaadaan. laakiin inkastoo si weyn looga tiro badan yahay Cheng ayaa weli ah mid aan laga adkaan karin. wuxuu ku dhamaanayaa inuu si naxariis daro ah u dhaawaco mid kasta ka hor intuusan ka bixin goobta. muuqaalka xiga waxaan ku aragnaa gabar 10 jir agoon ah oo lagu magacaabo Shao Yu iyo walaalkeed ka yar. carruurtu waxay xadayaan xoogaa cunto ah wayna cararayaan markaasoo ay koox tuugo ah qabteen. si kastaba ha ahaatee Shao Yu waa gabar geesiyad ah oo aan ka baqin nimanka. xitaa mid iyaga ka mid ah ayay qaniintay oo wejiga kaga candhuuftay. tuugii ayaa ka carooday arrintan oo ku weeraray mindi. laakiin ka hor intuusan dhaawicin iyada Cheng ayaa soo baxay oo ku soo tuuray dhagax. wuxuu sidaa ku samaynayaa si sax ah inkastoo uu indhoole yahay. markii ay arkeen tuugadii waxay la gariireen cabsi waxayna si degdeg ah uga carareen halkaas. Shao Yu oo u mahadnaqaysa ayaa markaa Cheng siisay tufaax laakiin wuu diiday oo wuu baxay. fiidkii Shao Yu waxay si dhuumasho ah ku soo gashay guriga deriska ah say u xado xoogaa rooti ah balse waxaa qabtay gabar yar oo jikada wax ku karinaysa. inantii yareed waxay ugu hanjabtay ul oo ka codsatay inaanay waxba yeelin. si kastaba ha ahaatee gabadhu waxay u muuqataa mid naxariis badan oo waxay siinaysaa rooti badan. kadib markii Shao Yu ay u sii socoto inay baxdo guriga waxaa si lama filaan ah u soo galay tuugo. hogaamiyahooda waa nin lagu magacaabo Chu Leng kaasoo si degdeg ah qof walba u qafaalanaya oo ay ku jirto haweenaydii naxariista badnayd. waxaa soo baxday inuu dhowaan dilay naagtiisa iyaduna cid kale ma ahayn ee waxay ahayd gabadha walaasheed. maadaama qoysku isku dayayay inay dacweeyaan Chu Leng wuxuu u yimid inuu xasuuqo dhammaantood. isla markiiba shaqaalihiisu waxay bilaabeen inay mid u weeraraan dhammaan xubnaha qoyska. kadib markuu wada dilay Chu Leng wuxuu u yimid gabadha da'da yar oo ka codsaday inay raacdo. wuxuu u ballan qaaday inuu ula dhaqmi doono sidii amiirad oo kale laakiin gabadhu way diiday oo waxay isku dayday inay weerarto. tani waxay ka caraysiisay qofka naxariis laawaha ah oo uu bilaabay inuu ku celceliyo mindi ilaa ay dhimato. dhanka kale Shao Yu oo daawanaysay muuqaalka oo dhan ayaa ka soo baxaysa cawska. marka tuugadu mashquusho waxay ka faa'iidaysanaysaa waqti ay ku cararto. laakiin aakhirkii way ogaadeen iyadoo mid ka mid ah oo lagu magacaabo Yo uu dibadda u soo ciirsaday. jidka dhexdiisa wuxuu la kulmay Cheng oo sarkhaansan oo meel walba ku matagaya. Yo wuxuu u malaynayaa inuu yahay nin indhoole ah sidaa darteed wuu iska indhatiray isaga. daqiiqado kadib Cheng wuxuu ku soo noqday gurigiisa oo uu dareemay Shao Yu oo ku dhuumanaysa gudaha. wuxuu kaloo maqlayaa tuugada oo gurigiisa u soo dhacaysa oo gabadha raadinaysa. garashada culayska xaaladda darteed wuxuu si dhaqso ah uga caawinayaa gabadha yar inay ka dhuumato iyaga. kadib tuugada ayaa markaa baaraya goobta oo dhan laakiin way ku guuldaraysteen inay helaan. markay guriga ka soo baxaan waxay dibadda kula kulmayaan ilmo kale kaasoo noqday Shao Yu walaalkeed. wuxuu xiran yahay kabo la mid ah kabaheeda sidaa darteed tuugadu waxay u malaynayaan inuu yahay isla gabadhii ay raadinayeen. kadib Chu Leng ayaa qabtay ilmaha oo saaray faras. wiilkii oo argagaxsan ayaa isla markiiba foori ugu baaqay walaashii laakiin markay timaado aad bay u soo dahday. raggiina way iska tuureen oo waxay kula tunteen qoobabkii fardaha ilaa uu ka dhinto. subaxdii xigtay Shao Yu oo niyad jabsan ayaa la kulantay Cheng oo ka codsatay inuu u argudo walaalkeed. waxay aragtay xirfadiisa dagaal waxayna aaminsan tahay in isaga kaliya uu caawin karo. si kastaba ha ahaatee Cheng wuxuu caddeeyay inuusan ahayn gacan ku dhiigle aan waxba u kala socnayn balse kaliya uu dilo kuwa la doonayo. fiidkii Cheng wuxuu ku soo noqonayaa guriga kadib ugaarsi abaalmarin ah maalintii oo dhan. si la yaab leh Shao Yu ayaa sugaysa isaga waxayna daaha ka qaaday inay sawirtay qofka dilay walaalkeed. waxay u dhiibtay warqadii oo waxay ka codsatay inuu dilo laakiin mar labaad wuu diiday oo guriga ka saaray. subaxad xigta Cheng waa inuu shaqo ugu safraa magaalo kale oo 200 oo mayl u jirta. ujeedadiisu waa inuu halkaas ku dilo kaluumaysato dadka dil iyo dhac u geysata. si kastaba ha ahaatee intuu jidka ku jiro faraskiisii ayuu xakamayn waayey gaarigiisana wuxuu ka dhacayaa buur dhinaceeda. Cheng dabadeed hal gacan ayuu dhagax ku qabsaday oo bilaabay inuu dib u soo fuulo buurta. iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana si lama filaan ah qof u qabsaday lugtiisa waxaana soo baxday inay tahay Shao Yu. waxaa la ogaaday inay ku dhuumatay gaarigiisa oo ay la saarnayd waqtigan oo dhan. inkastoo uu carooday Cheng wuxuu soo qabtay inantii yareed labadooduba si wada jir ah ayay u soo fuuleen buurta. hadda ma haysto wax kale oo aan ka ahayn inuu u kaxeeyo meesha uu u socdo. kadib markii ay socdaan maalmo labada musaafir waxay yimaadeen goobtii la sheegay oo waxay la kulmayaan ninkii kaluumaystaha ahaa iyagoo iska dhigaya marti. kaluumaystuhu inkastoo uu garanayo aqoonsiga dhabta ah ee Cheng haddana wuxuu iska indhatiray xaqiiqda wuxuuna u shubay koob cabitaan ah. dhanka kale Shao Yu waxay ku ciyaaraysaa harada dhinaceeda markaasoo ay aragtay gacmo googo'an.
iyadoo argagaxsan waxay ku qaylinaysaa cod sare oo si degdeg ah uga digtay Cheng. sidaa darteed dagaal baa dhex maray Cheng iyo kalluumaystaha. Ninka ayaa wuxuu u soo diray tuugo badan si ay isaga ula dagaalamaan, laakiin Cheng si fudud ayuu uga adkaanayaa dhammaantood. kadib markii uu dilay qof kasta, wuxuu dabagalay kalluumaystaha oo uu si xun u dhaawacay. laakiin ninku wuxuu ugu yeeray inuu yahay kabtankiisa oo wuxuu daaha ka qaaday inuu mar ahaan jiray caawiyihiisa dagaalka. wuxuu qirayaa inuu dalka wax badan u soo huray, balse uusan waxba ka helin, sidaa darteedna uu u soo jeestay dhac iyo dil. kalluumaystaha ayaa markaas ka baryayay naxariis, laakiin Cheng ayaa seef qabsaday oo qoorta ka gooyay. fiidnimadii labada qof waxay isku diyaarinayaan inay ku noqdaan gurigooda kadib markii ay dhammaysteen hawshooda. Xiao Yu ayaa mar kale ka baryaysa Cheng inuu u argudo geerida walaalkeed, laakiin wuu diiday. isagoo ka xanaaqay adkaysigeeda ayuu magaalada kaga tegay oo keligii ku noqday gurigiisa. muuqaalku wuxuu markaa isu bedelayaa bil kadib, markaasoo Cheng uu ogaanayo inuu qof joogo gurigiisa. Xiao Yu ayuu ka soo jiiday sariirtiisa hoosteeda, wuxuuna ogaaday inay aad u dhaawacantay oo ay xanuunsan tahay. kadibna dhaawaceeda ayuu daryeelayaa oo bilaabay inuu quudiyo. dhowr maalmood kadib inantii yareed si lama filaan ah ayay u kacday oo bilowday inay biyo cabto. Cheng wuxuu weydiiyey sida ay ku soo noqotay, taasoo Xiao Yu u sharaxday inay xifdisay khariidada jidka. si kastaba ha ahaatee, maadaama aysan haysan baabuur, waxay soo socotay maalmo si ay halkan u timaado. Xiao Yu ayaa markaas weydiisay inuu baro fanka dagaalka si ay ugu argudo walaalkeed. Cheng in yar ayuu hakad ku jiray, kadib wuxuu u sheegayaa inay ku noolaan karto hoygiisa. ma sheegin wax ku saabsan fanka dagaalka ama argoosiga. maalmihii ku xigay, Xiao Yu waxay caawinaysay ninka indhoolaha ah marka uu u baahdo. waxay ka caawisaa inuu aqoonsado baxsadka oo ay ugu keento goobtiisa. taasina waxay keentay in ganacsigiisa ugaarsiga baxsadka uu noqdo mid aad u guulaysta oo uu helo lacag badan. muddo kadib way isku soo dhowaanayaan. Chengna wuxuu aakhirkii u oggolaaday inay seexato guriga beddelka xerada faraska. maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo Xiao Yu ay daaweynayso nabarkiisa, waxay aragtay nabaro badan oo jidhkiisa ka muuqda oo ay wax ka weydiisay. Cheng wuxuu ku jawaabay inuu galay dagaal uu ku difaacayo magaaladiisa Chang'an. waxa uu sidoo kale daaha ka qaaday inuu aad ugu dadaalayo siduu u kaydin lahaa lacag ku filan suu hoygiisa ugu laabto oo uu nabad ugu noolaado. maalmo kadib, Xiao Yu waxay timid goob madadaalo iyadoo raadinaysa macluumaad ku saabsan qaar baxsad ah. intay raadinta ku jirtay ayay mid ka mid ah qolalka ku aragtay Zhu Leng, taasoo ku reebtay naxdin. ninka xun isna wuu arkaya oo ugu yeeray inay dhinaciisa soo fadhiisato. waxaa soo baxday inuu ku sharadinayo dagaal suu su'aalo u weydiiyo cidda ku guulaysan doonta. waqtigan xaadirka ah, Xiao Yu waxay xasuusanaysaa dhimashadii walaalkeed, waxayna damacday inay islamarkiiba qoorta ka goyso tuuga, laakiin sidoo kale aad bay u argagaxday. sidaa darteed waxay dooratay inay hadda iska aamusto. markay guriga ku soo noqoto, Cheng wuxuu si farxad ku jirto ula wadaagay inuu helay qoys ay u samayso cabitaanka. wuxuu sharxay in dadka cabitaanada sameeya ay ku noolaan karaan nolol wanaagsan, qoyskuna ay jeclaan doonaan. waxaa soo baxday inay jirto haweenay u timid si ay u kaxaysato. Cheng wuxuu saarayaa inantii yareed gaariga oo uu ku qasbayaa inay tagto. si kastaba ha ahaatee, si degdeg ah ayay uga soo degtay oo shaaca ka qaaday inay la kulantay ninkii dilay walaalkeed. markuu maqlo hadalkeeda xanaaqa ku dheehan, Cheng wuxuu ugu dambayntii go'aansaday inuu baro fanka dagaalka laga bilaabo subaxda xigta. waxay bilaabayaan tababarkooda. marka hore wuxuu barayaa hab ay dadka qoorta ugu calaamadiso burush iyadoo aan qofna ogaan. Cheng wuxuu sheegay in haddii ay ku fiicnaato ay hubaal ahaan awoodi doonto inay disho Zhu Leng. wuxuu u dhiibayaa burushka rinjiga oo ka codsaday inay wax badan ku tababarato. Xiao Yu waxay markaa ku wareegaysaa calaamadaynta dadka si aan toos ahayn, waxayna si dhaqso ah u baratay farsamada. inta lagu jiro waqtigan, Cheng wuxuu sidoo kale barayaa xirfadaha dagaalka, taasoo ay ku tababaranayso habeen iyo maalin. maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo Xiao Yu ay keligeed ku sugan tahay guriga, Yo ayaa si lama filaan ah ugu soo muuqday iyo nin da' ah. waxaa soo baxday inuu helay sawirka maamulihiisa oo la raadinayo, kaasoo ay dhowr meelood dhigtay. waxa uu ku eedeeyey inay sawirtay oo uu weydiiyey inay ku samaysay amarka indhoolaha. si kastaba ha ahaatee, inanta yar ayaa si geesinimo leh isaga riixday, iyadoo ku adkaysatay in Cheng aanu wax shaqo ah ku lahayn. Yao oo xanaaqsan ayaa isku dayey inuu weeraro, laakiin Cheng ayaa soo baxay isla waqtigaas. labada nin ayaa markaas dhex maray dagaal ba'an ilaa Cheng uu ugu dambayntii ku guulaystay inuu dilo. intaas kadib wuxuu u tegayaa odayga oo isna ka mid ah tuugada. Cheng wuu garaacay oo wuxuu ku sigtay inuu dilo, laakiin waxaa joojisay Xiao Yu. waxay ku adkaysanaysaa in ninku aanu waxba galabsan, mana aha inuu dhinto. Cheng wuxuu ku jawaabay in argoosigu uu keeno dhaawac, dad badan oo aan waxba galabsanna laga yaabo inay dhibaato u maraan. wuxuu u sheegay in haddii ay doonayso inay argoosato ay u baahan tahay inaanay naxariis lahaan. si kastaba ha ahaatee, Xiao Yu oo ilmaynaysa ayaa qiratay inay beddeshay maskaxdeeda oo aanay doonayn inay walaalkeed u argudo. markuu tan maqlay, Cheng ugu dambayntii wuu fasaxay odaygii. muuqaalka xiga, labada qof ayaa go'aansaday inay ka tagaan magaalada dhibka badan
oo ay nolol caadi ah ka raadsadaan Chang'an. In yar oo ay socdaalayeen kadib waxay diyaarsadeen xero, waxayna damceen inay habeenkii nastaan. Xiao Yu waxay sheegtay inay doonayso inay siiso mid ka mid ah indhaheeda suu wax u arko. Chang aad ayuu ugu qiirooday dalabkeeda, laakiin wuxuu sheegay inaysan muhiim ahayn. Subaxdii xigtay wuu naxay markuu ogaaday in Xiao Yu aan hadda joogin xerada. Markuu wareystay nin kale oo musaafir ah, wuxuu ogaaday inay magaalada ku laabatay habeen hore. Taasi waxay ku riday xaalad argagax leh. Markaas ayuu isla markiiba faraskiisa dib u celiyay oo u soo jihaystay magaalada. Dhanka kale waxaan aragnaa Zhu oo ka murugaysan geerida saaxiibkiis uu jeclaa. Wuxuu bilaabay inuu diyaariyo boqolaal askari say u raadiyaan Chang iyo Xiao Yu, laakiin isagoo aan ka warqabin inantii yarayd ayaa durba gurigiisa soo gashay. Muddo kadib Zhu wuxuu ku soo noqday qolkiisii, wuxuuna miiska hoostiisa ku arkay cagaha Xiao Yu. Marka uu u tago suu u hubiyo, isla markiiba way soo boodaysaa si ay u weerarto. Nasiib daro iskudaygeeda waxaa fashiliyay waardiye oo si degdeg ah u xakameeyay. Xiao Yu waxay dib ugula dagaalantay dhammaan farsamooyinkii uu Chang baray, laakiin waxba ma tarin. Kadib Zhu wuxuu ku qasbay inay cunto gacan mugeed oo daroogo budo ah, taasoo ku keentay inay qufacdo dhiig. Intaas kadib wuxuu isku dayayaa inuu u dhameeyo iyada, laakiin Chang ayaa ku yimid waqti yar gudihiis. Xiao Yu markii ay aragtay way oyday, waxayna ku degdegtay inay isku duubto sidii ilmo ka maqan aabaheed. Zhu ayaa markaa ka faa'iidaysanaya mashquulinta oo cararaya. daqiiqado kadib labadoodaba waxay u soo dhaadhaceen dabaqa hoose, halkaasoo ay kula kulmeen koox calooshood u shaqaystayaal ah. Jiang wuxuu adeegsanayaa xirfadiisa seefta ee cajiibka ah si uu uga adkaado mawjadaha weerarada. Inkastoo uu awoodiisa oo dhan adeegsaday, haddana ciidanku way sii badanayaan ilaa ay waayaan meel ay ka baxaan. Xiao Yu waxay bilowday inay argagaxdo oo ay la suuxdo culayska xaaladda. Cheng dabadeed wuxuu saaranayaa dhabarka oo uu kula dagaalamayaa xooggiisa oo dhan. Ugu dambeyntiina si xun ayuu u dhaawacmay, balse si uun ayuu ugu guulaystay inuu ka adkaado dhammaan ciidanka. Kadib wuxuu dabagelayaa Zhu oo labada nin waxay gelayaan dagaal naxariis daran. Waxaa si dhaqso ah u caddaatay in ninka xun uu sidoo kale yahay dagaalyahan xirfad leh. Dagaal dheer oo adag kadib wuxuu maareeyay inuu si arxan daro ah u tooriyeeyo Cheng dhowr jeer. taasi waxay keenaysaa in Cheng uu dhulka ku dhaco isagoo ku jira bali dhiigiisa ah. Zhu ayaa markaas sii waday inuu u dhameeyo, laakiin Xiao Yu ayaa si lama filaan ah u kacday oo qabsatay lugtiisa, iyadoo ka hor istaagaysa inuu dhaqaaqo. Isagoo ka faa'iidaysanaya fursaddan, Cheng si uun buu u kacay oo cunaha ka gooyay Zhu, ugu dambeyntiina dilay. Wixii ka dambeeyay, Cheng wuxuu qaadayaa Xiao Yu, taasoo mar kale miyir daboolantay. Dabadeed si adag ayuu laabta u geliyay oo timaheeda salaaxay. Cheng wuxuu u sheegay inuu u arguday walaalkeed, sidaa darteed uu hadda doonayo inay u raacdo magaaladiisa. daqiiqado kadib ayuu la suuxay dhaawicii soo gaaray, wuuna naf baxay. Subaxdii xigtay, Xiao Yu waxay ka soo toostay guri, waxayna ogaatay inuu daweeyay Cheng saaxiibkiis. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa marka aan aragno iyadoo ku sii socota magaalada Chang'an, halkaasoo ay rajaynayso inay ka bilowdo nolol cusub oo ka fog rabshadaha. Muuqaalkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.